تصالي أهان مبادئ إذا كهري مريسة وحاكمة الحرية المطلقة إنه قفكو آمينه إنه حر إسكيه يسد حولها أو كره هذا إنه تصالي قاعد سوق هذا إنه لبض مرة أما لبها بلوت ولبض المسلمين تصالي أهان تاني وحجاب انتهى حجابك وحي ولا إيمان إيسا سإلهي سبحانه وتعالى أخرى لقلسه ورب سبحانه وتعالى آخر عقابك سي عذابك سوقبت باده وحي حجابك ولا إيمان إيسا سي نفتي أطهرته سي سوء أسطرته سي مكارم الأخلاق إيا واجباتك إلهي كرساري أقودته بي ولا إيمان إيسا وحي أمسنتهي إن إلهي أدورنتهي أوهو قاسنتهي أشر بيكو طلبيسا لبك كإيمان إيا وحي لها لسو درسي وكسب ريسا تنكله waxay aaminsan tahay inay xor tahay laakiin waxay ka shaqeysaa waxyaalaha modelka ah ee la isku dharka iyo waxyaalaha la midka ah iyo waxyaalaha la isku qurxiyo marka la yiraahdo maxaad u xijaaban weeyday maxaa dariiqi saxda ah ka duway maxaad ilaahay subhanahu wa ta'ala u raalin gari weeyday adduunyada waa dhamaanaysa aakhira badane maxaad xagga ugu jeesan weeyday ku tii xor baan ahay xijaabku aniga iyo ilaahay buu noo dhaxeeya xor baan ahay walidalika waxa leenahay walaalayaal taas sheeganaysa inay xorta tahay marka loo fiirsado xor ma waayo markay dharka xayeysiinayso waxa la oranayaa miisaankaagu yaanu siyaadi dad buurnaato dharna waxa xayeysiinayso waxa la leeyahay isqaawi shaambogana noo xayeysiinayso waxa la leeyahay qosol waxa la leeyahay sidaan u labiso yani xeerar aanay ka gudbi karin baa jira walidalika qoftii dumar ay soomaysay ee ilaahay sodanka casho u afxidhnay iyo tan weligeed afxidhan ee la yiri miisaankaagu yaanu 45 kilogram dhaafin labaduba waa adoomo laakiin mid waxay u tahay adduunyada adoon u tahay iyo shilinka ay qaadanayso waxaana iska dhaadhicisay inay xor tahay tanina waxay u tahay adoon ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aakhiro ay ajar iyo sawaab ku doonaysaa labaduba waa gaajoodeen laakiin midna maxay heshay shilimaad adduunyada heshay midna waxay heshay maxay midna waxay heshay ajarkii iyo istiqaamadii iyo toosnaantii waana hadafka ah taskiyada إن نفط الله طهره وإلهي سبحانه وتعالى لقوله ولذلك وحيالها وهمي جاء إن نفط دور إنك وقوقا عيسو سيعد وقال يحطه مبدئي أها إن إلهي سبحانه وتعالى إن تكحد ناطه أي كائن ليس تسكير وحد قال يسا واحد أنه شهي